أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز ولكن أنا نور حسن حاتو سدواتين كانال كان مقال براشان إن شاء الله ما أنت برنامج كان ديالين وحنا كبرن دونا qaabkee ayaad u ogaan kartaa qof saaxiibkaaga ama saaxiibtaada ah hadba qofku yahayba sidee ayaad u taraagarayn kartaa numberkiisa WhatsApp-ka tusaale ahaan qofkaas waqtigu soo galay WhatsApp-ka inaad ogaatid oo lagu soo diro notification qofkii aad u baahneed online waay sidoo kale qofkaad u baahneed offline waay waa application noocaas ah wuxuu ku sahlayaa qofkaas mar walba dhaqdhaqaaqiis ayuu ku sheegay WhatsApp-ka inta time uu ku jira inta time uu ka maqan yahay iyo hadduu online yahay hadduu offline yahayba application-ka sidoo kale waxyaabaha cajiibku ku leeyahay waxa waaye qofkan hadduu blog ku saaro sidoo kale waad ogaan kartaa haddii online yahay haddii offline uu yahayba application-ka official-ka qofka WhatsApp-kiisa haddii uu last scene-ka tusaale ahaan WhatsApp-ka markaad soo gashid last scene-ka meeshan aad u jeedin oo qofka waqtiga ugu dambeeya WhatsApp-ka isticmaalayo in la arko inaan la arkin nobody qofka duu saartay xitaa waad arki kartaa meeshan aad u jeedin si aad u isticmaashid application-kan track-ga qofka lambarkiisa lagu track gareynayo ugu horeyn waxaad u baahan tahay Play Store-kaada ayaad soo furaysaa kadib qaybta searching-ka waxaad soo gelinaysaa What's Urgent Online Notification Last Seen History oo application-kan aad u jeedin application-kan wuxuu si fudud kugu sheegi doonaa qof numberkiisa aad ku track gareyn kartaa hadduu online yahay hadduu offline yahay ayuu si degdegsiima kugu sheegi doonaa marka application-ka marka soo download gareysatid waad furaysaa application-ka si tan ayuu ku keen doonaa interface-ka policy-ga oo application-ka iyo privacy-ga ayaad agree ayaad ku dhufanaysaa agree markaad ku dhufatid qofka magaciisa aad inta gelinaysaa aad u baahan tahay inaad ogaatid hadduu online yahay hadduu offline yahay mar walbaba ani tusaale ahaan magacaada aan u bixinayo waxa waaye dhibana ayaan ku qorayaa waad u jeedin wadankana inta ayaad ka dooranaysaa qofkaas wadanka uu joogo inta ayaad ka dooranaysaa aad u baahan tahay inaad ogaatid laasinkiisa qaybta markaad ka soo dooratid wadanka uu joogo qofkaad u baahan tahay inaad track ku samayso WhatsApp-kiisa qaybtan waxaad gelinaysaa lambarkiisa qofkaas ayaad gelinaysaa aad u baahan tahay inaad track ku samaysid ana aad waxaan gelinayaa lambarkayga aan gelinaya waxaa muhiimsan lambarka qofka inaad gelisid meeshan kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybta sare follow ayaad ku dhufanaysaa marka aynu aragno application-ka wuxuu inoo soo saari doono application-ka markaan follow ku dhuftay wuxuu ii soo saaray dhibane 11 hours ago ee ugu dambeysay hadda profile-kiisana ayuu ku soo saari doonaa profile-kaas sawirkaas aad u jeedin waa profile-kayga waa marka aynu aragno marka waxaan soo furay WhatsApp-ka aan soo furay qaabka notification-ka inoogu soo diray aynu arkaynaa waad u jeedin marka guys WhatsApp-ka markaan soo furay qaybtan sare wuxuu ii soo diray notification ayuu ii soo diray dhibane is online waad u jeedin aan filayaa qaybtan meeshan ay ugu soo diray dhibana is online marka application-kan aad ayuu muhiim u yahay qofka lambarkiisa markaad gelisid kuma weydiinayo fariin lagu soo diray numberkaas waxaa muhiimsan country-ga uu joogo oo numberka country-ga uu joogo numberkiisa aad gelinaysaa kadib waa ku register gareynaysaa hadda application-ka markaynu soo furno hadda dhibana online uu noo soo qoray marka aynu aragno marka qaybtaana ka arki doonaa insha Allah waad u jeedin hadda waan ka remove garay 1 minute ago uu leeyahay application-ka qaybtan hoosena compare activity-gana dhaqdhaqaaqa inta ugu dambeeya uu sameeyay aad kala socon kartaa qofkan marka application-kan guys aad ayuu muhiim u yahay qofka aad u baahan tahay WhatsApp-kiisa aad track ku sameynaysaa haddii application-kan dhibaato ka soo gaarto mas'uulka meeyi walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leh assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh